jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Nairobi ee ku dhaqan magaalada Nairobi halkan waxaan u nimaanay in aan ka tacsiyeyno sida arkaysaan sawirka walaashay Hodan Naaleeye dadku shucuur wanaagsan bay muujiyeen waa la isku wada imaaday si wanaagsan baa loo xusay laakiin ra'yi ahaan aniga maanan qabin in maxaa la yiraahdaa event noocan oo kale inta la isugu yimaado oo saan oo kale loo hadlo iyadoo mira dhal lahayn laga wada tago sababtu waxay tahay maalin kasta qof haldoorka Soomaaliyeed ah baa naga baxo naga dhinta haddana inaga ma ka muujino wax shucuur oo sax ah ama xataa qofka ta'tiir ama wax raad reeb ah uma samayno waxa ila halboonayd imaatinka xafladan eventiga la sameeyay inuu noqdo eventi contribution loo sameeyo walaashay si magaalada ay ka soo jeedo ee Laascaanood inta la tago waxyaabaha khayraadka ah ee qofka markuu dhinto qabriga ugu tagaya ee aan ka go'aynin ee sababta meesha ay ku helayso in loo sameeyo oo ay kamid tahay gabadha maanta Laascaano ku nool markay uur qaado waxay dareemaysaa walwal ah halkee ku dhali doontaa isbitaalka ku dhali doonto wuxuu noqon doonaa inay isku go'da halis noqon doonto soo marka waa in laga fakaraa la raadiyaa qaabka ugu wanaagsan ee gabadha Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa tusaale markaan soo qaato waxaa mudnaanteeda lahayd xafladan markii la soo agaasimay inay noqoto xaflad contribution lagu soo galaayo lacag laga aruuriyo culimada masaajidada ay ka wada sheegaan qof haldoorka Soomaaliyeed naga baxay in ayada markaas lacagtii la aruuriyay MCH lagu dhiso madaraso ay haweenku ay taxfiidka iyo waxbarashada ay ku bartaan in loo sameeyo in masaajid loo sameeyo sidii hadda markaan aragno dadka magaca leh wadankan aan joogno tusaale ahaan markaan u soo qaato waxaa jirto isbitaalooyin waaweyn jiraan oo Kenyatta Hospital oo kale oo odaygii wadankan xuriyada siiya Kenyatta Hospital waxa uu sameeyay waxa waaye asaga lagu xusaya saasoo kale Hodan Naaleeye Hospital in Laascaanood laga furo oo laga sameeyo maxaa la yiraahdaa masaajidda in loo waxeeyo ceel in loo qodo dadka ooman inay ku hirtaan oo ay helaan waxaas oo dhan waxay u noqon lahayd sadaqa jaariye ah oo aanan go'in oo qabrigeeda gaarto bulshada Soomaaliyeedna waxay ku fakari lahaayeen haday ayaga haldoorka ay saa u baxaan inay dhahaan war adiga kaliga waaye qofka nafta go'ayso ku dhaqaaq waxaan wanaagsan samee si uusan qofku cabsan hadda waxa laga yaabaa inay gabadha Soomaaliyeed ka cabsato tiraado war Hodan oo haldoor ahayd way dhimatay qof magac iyo dhaxal iyo sumcad wax ay rabtay ma jirto oo inta isxumeeyo oo u haro laakiin hadduu wax qabad ka arki lahaa isdhihi lahaa saan haddii walaashan loo wanaajiyay bari hadaa adi wax qabatana saasa lagu wanaajin lahaa marka waxaan aniga maadaama ana ahay safiirka dhalinyarada ee haldoorka dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa maxaa la yiraahdaa إلهي سبحانه وتعالى ما أنت قفل بو قفل وصارة ما دام دلنيار دي أنا هاي إلهي أنا جنسوا أديجي وحان ربنا إن بالشدة إن ده سقنا قنا وحان الربع عد كيجاس إن الصومالي والبقية تو contribution كلا سمايو سي هدو مركز بتاعلا ده يا خيرات كمرك الله بيسو حتى الدولة ده كانت أنت الله تقول الله وأنا جي ونا جانا سميني قبل أنا جا ونا جا سميني أجاب كي دولة ده حكب بحسه عدين قلنا هاي إسبيتالة ده أجاب كلها بحنا equipment كلها بحنا لا يتصل وكله سريره طلبة سنا دوين كي وحول بالدولة ده كنا لنا ديار بيننا نقول ده حي أكلة Soomaaliya إنه يهين ضد أي واحد خب صناعية أي أنا فرحت بي أو أهلا له ردي أنتوا بيحكي كلب كنت لو دو لو در أركان مركم حلا هاي Soomaaliya جوجيا حفلة ده أو إيماني سامفو فانكا أو أنت وحير لقى والله الله كدي بسلفي أنت اللي إسكقاض Hodan Naaleeye maanta dhimatay waa ka saabuurkeedii Allah u naxariisto laga siito waxaas waa laga wanaagsan yahay waxaan ku boorinayaa mana dhaliilaya xaflad laakiin waxaan ku boorinayaa inaan walaalayn wax la qabano waadna mahadsantihiin salaamu calaykum